بسم الله الرحمن الرحيم برنامجka kun iyo kow hormar waa barnaamij taxana noqon doona oo aanu ku soo bandhigi doono waxyaalihii ugu muhiimsanaa ay aqoon-yahanadii muslimiinta adduunka ku soo kordhiyeen. barnaamijka kun iyo kow oo aanu ka soo xigan doono buugga lagu magacaabo 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World ee uu isku dubariday Saliim Al-Xasaani. waa barnaamij dhiirigelin u ah muslimiinta maanta jooga si ay u soo celiyaan dhaxalkii aqoon-yahanadii muslimiinta isla markaana iyaga qudhooda ay adduunka saameyn ugu yeeshaan. dunida aanu ku noolnahay maanta waxaa laga cabaa in ka badan 1.6 bilyan oo koob kafee ah maalin kasta. hadda waa 1.6 bilyan koob oo kafee ah maalin kasta. laakiin cabitaanka cajiibka ah ee saa loo wada cabayo xaguu ka yimid weli ma isweydiisay yaa ugu horreeyay ee adduunka baray. muddo laga joogo ama qarnigii 11aad waxaa jiray nin muslim ah oo xoolo dhaqato ahaa oo ari ku raaci jiray dalka Itoobiya. ninkaasoo la sheegay asal ahaan inuu Yemen ka soo jeedo, magaciisana la oran jiray Khalid. ayaa wuxuu arkay arigiisa marka uu daaqo geed ka mid ah geedaha oo uu helo firfircooni iyo nashaad dheeraad ah. nin caqli badan ayuu ahaa, isla markaana wuxuu isku dayay inuu ka war doono geedkaas. geedkii ayuu cunay. allah sidii xoolihii oo kale ayuu asagana wuxuu dareemay firfircooni iyo nashaad dheeri ah. wuxuu yidhi geedkan sir ayaa ku jirta. geedkii mirihiisa ayuu aruuriyey, uu hormariyey, dalka Yemen ayuu geeyey. deetana markaa waxaa cabitaankii inuu cabo bilaabay ama isticmaalo qolada la yidhaahdo suufiyada dalka Yemen, oo sabab u noqday in cabitaankani uu ku faafo dunida muslimka, gaar ahaan markaasi Maka iyo Madiina, isla markaana uu gaaro dalka Masar. dalka Masar waxaa ka sii qaatay dalka Turkiga. magaca qaxwaha ama koofiga ama kafeega maanta wuxuu soo maray marxalado kala duwan. qaxwo ayuu ku bilowday, gahba ayuu noqday, aakhirkii hadda wuxuu caan ku noqday koofi ama kafee oo adduunka laga cabo. wuxuu soo gaaray wadamada reer galbeedka qarnigii 16aad. waxaana xusid mudan marka uu soo gaaray waxaa cabi jiray dadka eliidka ah ama dadka gaarka ah. dadkoo dhan maysan wada cabi jirin. waxaa kaloo xusid mudan in xataa dadka laga mamnuucay oo la yidhi ma cabi kartaan maadaama uu yahay cabitaan naga soo gaaray dalka muslimka. laakiin waxaa la sheegaa baadari ka mid ah kuwa kaniisadda inuu cabay, isla markaana uu ka helay, dadkana uu fatwooday inay cabaan. haddaba inaad ogaatid taariikhda qaxwaha cidda adduunka ku soo bartay ama keentay waxay kaa caawinaysaa in aad dacwo ahaan u gudatid oo dadka marka aad la fadhidid aan muslimka ahayn iyo kuwa muslimka ahba aad u sheegtid, aad ku tiraahdid cabitaanka kafeega waxaa dunida ku soo beeriyey ama baray nin muslim ah. taariikhdana uga sheekaysid, isla markaana aad tiraahdid muslimiinta dacayadda laga fidiyo dad mataqaanaa argagixis wax dila oo kaliya inaysan ahayn, laakiin ay yihiin dad adduunka horumar ku soo kordhiyey. barnaamijka xigi doona waxaan ku soo qaadan doonaa arrin kaloo muhiim ah oo ay muslimiinta adduunka ku soo kordhiyeen. la soco. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.